waxaa qadka telefoonka igu jira ee dalka Ingiriiska ninkii sameeyay calanka Galmudug ninkii sameeyay calanka Hirshabele Mr. Huday Huday waxaan weydiiyay bal inuu nooga warramo waxay tahay cabashadiisa marka hore walaal aad iyo aad mahadsan tahay Dahir Alasow iyo dhamaan ba dhageystayaasha waxa jira walaal sidoo sheegtay waxaan kamid ahay dadkii maaragtay ninkii waxaan ahay ninkii sameeyay calanka Galmudug waxaan sidoo kale ka qayb galay calanka iyo magaca tartankii loo galay calanka Hirshabele iyo magaca waxaan u diray 3 magac oo mid kamid ah la qaatay 3 magac waxay kala ahaayeen Riverland State Sameyay State iyo Hirshabele State way Hirshabele State oo macnaheedu yahay Hiiraan iyo Shabeelle oo la soo gaabiyay way cadaymahaasna waxay ku jiraan meelo badan oo ay kamid tahay gudoomiyihii hore hadda madaxweyne ku xigeenka telefoonkiisa emailkii ayagu soo direen iyo ninka la yiraahdo asagoo magaciisa lagu bara marka hore ashari laakiin hadda aan u aqaano in la yiraahdo Yaxye Ali Ibrahim xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha waya calankaas magacaas waxa la yiraahdaa Hirshabele Shabeelle baa la dheereeyay wax walbaana asal iyo farac bay leeyihiin asalki waa ka magacana ana iska horta marka koowaad waya cadaymihiina waan haynaa marqaatiyaashiina waan u haynaa waya magaca Hirshabele ma taqaan calanki waa laga dhacalay oo desaynka aad samaysay qof kala sheegtay arrinta maxaa ka jiro walaal arrintaas runtii waa isoo gaartay inay jirto warqad toosana waxaan u diray ninka la yiraahdo Yaxye Ali Ibrahim oo xogayaha joogtada ah magacaan ku aqaan markii horena uu ahaa ashari oo telefoonkiisa aan ku haystay waxa la ii sheegay inuu asagu shakhsi ahaan sheegtay yiri calankaas aniga sameeyay inaan anigu waya warqad baan u diro waxaan ku iri saaxiib arrintaas baa laga sheegaya waxaan ka rabaa inaad jawaab celin ka wuxuu ii sheegay inaanu sheeganin laakiin waxa uu diiday kana meermeeray inuu sheego calanka cidda iskale iyo cidda samaysay calankaana aniga sameeyay ummadda Soomaaliyeed ee maanta dhageysanaysa Alasow iyo dhageystayaasha iyo inta caalamka nagala socoto oo dhan waxaan rabaa halkaan inaan u cadeeyo calankaas iyo magacaas labadaba inaan anigu leeyahay lay musuqmaasuqay calanka waxa magaci waxa la ii sheegay qolo kale in la siiyay leeyahay qolo kale samaysay magaciina ninkii loo soo diray ummadda Soomaaliyeed inuu wax u qaybiyo u soo diray telefoonadooda iyo emailada u qoray anaga nagu soo hagaajiya inuu yiraahdo aniga sameeyay waa wax laga xishoodo waana waxaan hore loo arag Soomaalida aan hore loogu arag qofka mas'uulka waxa uu ka xishoon jiray marka waa wax xishood la'aan oo hadda ka hor maaragtay soo marin laakiin waa wax ummadda Soomaaliyeed ku cusub oo burburkii dalka ka dhacay ka baan u malaynaya laakiin haddaad samaysay magaca Hirshabele oo Hirshabele loo bixiyay maamulka oo la qaatay oo aad calankii samaysay ujeedkaaga adigu muxuu ahaa marka hore maxaa rabtay walaal anigu waxaan ahay nin sida aad la socoto Galmudugna ka soo jeeda gobolka Hiiraanna ka soo jeeda waya aniga markii dawlad goboleedyada maamul la qaatay waxaan kamid ahaa dadkii ka soo horjeeday marka koowaad in Soomaaliya la qaybiyo oo maaragtay federaalka waxaan diidan waya markaan isku dayay maaragtay inaan dadka ra'yigayga ugu soo jeediyana waxa iga hortimid wax la yiraahdo maxaad haysataa oo nagu darsataa ma meesha rabtaa wax la'aantaas oo rabtaa anaga inaan nagu jiido waya anigu waxaan ka bartay marka qoliyada tabliiqa waxa jira markii dadka tabliiqinaya waxay sameeyaan ninkii injineer u diraan dhaqtarkana dhaqtar bay u diraan waya dadku marka xirfadooda ka wada hadlaan markaas ka bacdiya dacwadu u dambaysa waya waxaan go'aansaday marka dadka inaan la soo filmo marka koowaad oo waxaan horta nin walba u arko inuu wax weyn haysto in cid walba heli karto maamul yeelan karto deganaansho la imaan karto inaan yeelo ujeedadaydu dhaqaale raadis ma ahayn Galmudug baan calanka u sameeyay dhaqaalana kama qaadan umana doonan mana tagin Alasow waay marka hadda bal shacabka magacaaga aad saddexan u sheegsay ku xasuustaan markay maqlaan ama calankii Hirshabele ama calankii Galmudug bal magacaaga saddexan u sheeg magacayga Axmed Ali Huday baa la yiraahdaa waxaana nin reer Hiiraana ku dhashay degmada Matabaan 1969 ujeedadayduna waxay ahayd inay maamuladaas oo ay dadkaas inay maamul iyo nabadgelyo kala dambeyn yeeshaan waxa la yaab leh
aadna u foolxumo ah in gobolkii aan ku dhashay la igu maasuqo mudug anigu waa ka soo jeedaa galmudug waan ka soo jeedaa dhalasho ahaan laakiin kuma dhalan waayahay Master Huday waa maasan tahay dambaalkaaga waxaan filayaa dadku Soomaalida inuu gaaray dadkuna ay ogaan doonaan inaad tahay qofkii sameeyay mataqaanaa calanka Hirshabele calanka galmudug samaysan hore waanu ogeyn waa maasan tahay Master Huday aad iyo aad baan kugu mahad celiyaa Dahir Alasow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته